waxaan siinayay casharo waalidiin badan waalidiintu waxay ka bilaabayeen barbaarintu meesha ay ku dhammaan oo ah ilmaha in khaladka laga saxo laakiin halka barbaarintu kama bilaabatay waxay ka bilaabataa waalidkan wax barbaarinaya marka barbaarinta furaheedu waa waalidka ilmaha sida khaladka looga saxo inaan farmuuq noqono waxaa ka fiican inaan furaha noqono in badan oo anaga naga mid ah waxaan nahay farmuuq waxaan ilmaheena ku farmuuqaynaa farta laakiin dhibaatadu asalkeedu aniga iga imaanaysa ama adiga ka imaanaysa ama waalidka Soomaaliyeed ka imaanaysa haddaba seebu qofka waayeelka ama waalidka ama arintu ay ka bilaabato oo u sameyn kara inuu asagu is ogaado tilaabooyin noocay ah kula talin lahayd maadaama aad qoraa tahay macallin bulshada tahay sidoo u taaban karo ummadda Soomaaliyeed haday fahanto nad siday ayagu u dhaqmayaan in ilmahoodu baranayaan laakiin inay ka qaadanayaan dabciga dabeecadaas waxaa maanta farxad iyo reerayn noo ah in aanu la wadaagayno ama uu nala wadaagayo caqligiisa iyo aqoontiisa aqoonyahan Soomaaliyeed oo buug qoraa ah ama qoraa ah macallin ah aabana ah haddana laf dhabar u ah ummadda Soomaaliyeed Cabdalla Shifeeye soo dhawow oo ku soo dhawow baraarug insha Allah aad iyo aad baan mahadsantahay walaal farxan ilaahay khayr ku siiyo adiga iyo tiimka baraarug waan idin salaamayaa aadna waan idin kaga mahad celinayaa hawsha muhiimka laf dhabarteed bulshadeena xilligii loo baahnaa aad ugu kacdeen walaalkay aad baan sidoo kale kaaga mahad celinayna waqtigaaga qaaliga oo aadna siisay Cabdullah anigu waxaan kugu bartay ama aan ka bartay cilmi baarid ama safar aqooneed aan u galay Soomaalida aqoontooda oo markii aan qurbaha ka soo noqday konton buug aan soo gatay aad ka mid ahayd buugta aan soo gatay qorayaashii qoray waxaan aad uga helay oo aan aad u raadiyay oo aan raad dheer u soo galay inaan kula kulmo oo aan ama aaladan ama one-on-one kula kulmo qoridda buugaad qortay qiimihiisa aad u bixisay sidee ilmahaagu ku maqlaan ama sidee ilmahaagu ku fahmaan oo insha Allah aan gudaha u gali doono ama sidee ilmaheenaba u korsanaayo bicnaha buugga u saasahay intaana buugaas gelin oo wadadaas dheer ku soo maray Cabdalla qofkeebu ahaa yaraantiisu yaasa saameyn ku lahaa noloshiisa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلهي سبحانه وتعالى ما هذا ورنا نسكله وهذا الله سبحانه وتعالى كذب وحرب إن نذكر ما هذا قبل رباضي مسد حاد برنامج كان qiimaha la adigu marti qaaday adiga iyo tiimka kala shaqeynayaba runtii hawlo badan oo wax tara oo aad habeen iyo maalin u taagantihiin baan arkaa iga soo horbaxa markaan social media in ka soo anigu aad ugu badnayn haddana mar kasta oo isiraahdo waqti yar oo firaaqaad haysatay gal waxa iga soo horbaxa muxaadaro qiimo leh oo bulshada Soomaaliyeed aad ku baraarujinaysid adiga tiimkaagu meesha dadka kale entertainment iyo madadaalo iyo qosol ku jiraan xad iga soo horbaxa fiidiyo aad u qiimo badan oo aad dadkaaga ku baraarujinaysid halka haddaan uga tago mahadnaqaas anigu sida rag badan oo generationkayga ah waxaan ku soo koray oo ku barbaaray Soomaaliya oo dawladda oo awood leh oo military leh oo dunida laga haybeysto waxaan ku soo koray magaalada Muqdisho oo iskoolka hoose dhexe ka bilaabay dhexe ka dhigtay sare ka dhigtay jaamacaddii bilaabay anigoo dhammayn nasiib darra dagaalkii igu dhacay intaas oo dhan oo noloshayda ay dhismaysay oo aan wax baranayay oo wacyigaygu kor u kacayay oo aan saaxiibo la ciyaarayay waalidka aniga gacanta igu hayay eedaday ahayd Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariistee kamay welwelaynin waxbarashadayda iyo iskoolkay waayo waxaan haystay dawlad si lacag la'aana wax igu baraysay macallimiinta wax noo dhigaysa u siinaysay mushaar iskuulla noo dhisaysay marka runtii waxaan ka mid ahay jiil ama generation aniga iyo intii naga horreysay nasiib weyn helay inay dadkooda iyo dawladooda wax barto marka waxaan ku kacaamay ku wax ka bartay oo ku koray magaalada Muqdisho caasimadda ummadda Soomaaliyeed runtii magaalo aan aad u jeclahay ah deegaan ahaanna waxaan ka soo jeedaa aniga oo dadkaygu degan yahay magaalada Laascaanood waxaad wax ku soo baratay Muqdisho waxaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haday noo shaay haday dhimatay ajir iyo xasanaad baan Allah ka siiyay waxbarashadaada ka qayb qaadatay eedada adigoo xagga ku dhashayna hooygii ama macaasumadii waddankaad wax ku baratay oo dawladii ay wax baraysay koridaada saasay ahayd kobacaagii nololeed iyo waxbarashadaadii kadib waxaad gaartay in aad buug ummadda Soomaaliyeed anfaca oo qiimo aad iyo aad u badan aad qorto intaanaan buuggaaga iyo qiimihiisa aanan gaarin bal waxbarashadaadii noo taabo ilaahay eedo khayr ha siiyo iyo intii ka qayb qaadatay waxbarashadaadii
bal marka kobacaagii nololeed iyo waxbarashadaadii noogu dar cabdallah adoo raali ah aad waad mahadsantahay walaal runtii waxbarashadaydii marka laga reebo sida caadiga ee waxbarashada ee Soomaaliya u dhisnayd oo ahayd hoose dhexe sare qofku markuu dhameeyo imtixaan jaamacadeed baan galno aad very tough oo ahaa dadka waxaan u maleynayaa loodkii ugu badnaa baan u helnay ilaa 20,000 oo arday baa jaamacadda imtixaan u fariisatay waxaan ka mid ahaa 1,000 arday ee nasiibka u helay inay jaamacadda loo qaato weli waxaan hayaa joornaalkii magacaygu ku qoraa ee aan ku soo baxay anigoo wax recommendations raadsan qof madaxa doonan hebel uu igala hadal oran dadaalkayga iyo waxbarashadayda inaan ku gaaray inaan jaamacadda ku galo jaamacaddii muqdisho galay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo runtii magac qurux badan lahayd say u shaqaynaysayna ay ka markhaati kacayso ay ahayd jaamacad ummad Soomaaliyeed waxaan bartay xilligaas kulliyad la oran jiray laamaha cilmiga oo xisaab iyo maxaa la yiraahdaa science isugu jirta mathematics physics la oran jiray xisaab iyo waxay ahayd science macallimiinta noo dhig jirta macallimiinta laanay wada hayeen jaamacadda lacag la'aan baan ku dhigan jirnay ardayda intooda badan hooy bay haysteen guriyay deganaayeen cuntana meesha laga sii jiray muxuu ahaa jaamacaddu waxay lahayd meel ardayda cuntada laga siiyo marka alxamdulillah waxaan soo bartay maadada xisaabta iyo physics-ka anigoo dhamaynin ayaa waxa dhacay masaa'ibkii iyo qaraxii iyo dagaaladii sokeeyay ee wadanka ka qarxay guud ahaan si gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo xilligii la kala haaday ee la kala cararay qof waliba meel si dalanbaabi ah u nafta meel ula doonay marka sidaas silsiladeedu waxbarashadu ahayd kadib waxaan soo galay wadanka Yemen oo runtii qiso cajiiba leh oo ah markii wadankii Muqdisho dagaalku ka dhacay oo aan imi Lascaanood oo ahayd magaaladii dadkayga iyo deegaankayga ahayd waan ka sii gudbay Yemen baan tagay Yemen hal ujeedaan u tagay Farxaano ujeedkaygu muu ahayn tahriib muu ahayn meel kale si aad waxas lahaa wadanku intuu degayo 1-2 years laba sano qaadanaysaa waqtigii ka lumina luqadda carabiga si fiican isaga dhis islaan eedadii baa deganeed oo caruur Yemeniyiin lahayd oo asliyan ayaan raacadmeed ahayn safarkii aan u soo baxay Yemen ku galay ayaa ila sii dheeraaday oo Talyaaniga soo galay nasiib wanaag ka mid noqday ardaydii fursad u helay waxbarashadoodii Muqdisho uga kala istaagtay inay Talyaaniga dib uga dhamaystirtaan jaamacad baadaba la yiraahdo magaalo baadaba la yiraahdo waqooyiga Talyaaniga ku taala ayaan waxbarashadeedii ka sii dhamaystirtay waxaan qaatay maadada xisaabta xisaab pure maaha accounting maaha maadada xisaabta ayaan waxaan ku qaatay master alxamdulillah marka silsiladeedu waxbarasho sidaas ay ahayd Farxaan aad u mahadsantahay Cabdalle kadibna halkaas aad waxbarashadaada ka sii wadato wax aad iyo aad u wanaagsan waaye sida mar labaad aan rabo inaan ku celiyo oo ah buugga aan aadka u raadiyey oo aan qoridiisa helay aad qortay adigu aan ku soo raadiyey oo aniga gacanteyda soo galay 27kii bishii July 2022 weeye waxa aan daba socono buuggaas waxaad ka qortay kobaca ama koridda ilmaha Soomaaliyeed oo maanta aad iyo aad ugu dayacan adduunka daafihiisa oo aan loo korin karin sidii eedo kuu soo korisay ama eedada Yemen joogta ay ku caawiso waxbarashada kaaga caawisay maanta dhibaatooyin jira awgeed maxaa kalifay inaad buuggaan qorto maxaa kugu kalifay xanuunka iyo qoridda buuggaan aad qorto su'aal aad u qiimo badan weyn runtii sida anigu aan markii sidaan tilmaamo sheegay aqoontayda iyo waxbarashadaydu kuma islaysnayn barbaarin waxaan bartay maadada xisaabta oo ay ahayd inaan macallin ka noqdo iskuulada sekondariyada ah jaamacadaha aan maadada xisaabta daba galo caadi ahaan dadka xisaabta bartaana waa dad ka duwan dadka caadiga dadka la dhaqanka bulshada aad uguma badna waa dad formulayaal iyo qaacidooyin aan dadka bini aadamka macno u samaynayn waqti badan geliya marka la eego qof waxbarashadeedii iyo waqtiga hadda ugu badan waxaan ku mashquulsanay aad bay kala duwan hal sabab ayaa keentay anigu horta hiba ahaan dabeecad ahaan hiba ahaan waxaan hibo u lahaa qoraal inaan wax qoro waxaan xasuustaa anigoo iskuulka anigoo secondaryga dhigta inaan qori jiray bugaagta taariikhda iskuuladii lagu dhiganayay inaan su'aalo iyo jawaabaha intaan soo koobo aan qoro xilligaas oo iska aad u dhib badnayd material iyo wax la isticmaalay waxaasoo dhan iska adkayd ayaan isticmaalay marka hibay ahayd qoraalkay inta aanan qorin buuggan barbaarintana bugaag kaleetaan qoray waxaan qoray internetka laga baranayay teknolojiyada internetka waxaan qoray buug taariikhda islaamka Andalus ka hadlaya qortay buug taariikhda islaamka ka hadlaya
waxaan iyo qoray andalus waa ku maqlaa taariikhda islaamka andalus oo runtii mashruucan aad u xiiseynaya aan aad u jeclaa taariikhda waan jeclaa taariikhda islaamkana si gooniyaan u jeclaa buuggaasaan qoray taariikhda islaamka andalus internetkaan qoray marka dhinacaasaan kusii jeeda qorshaygu wuxuu ahaa bugaag badan oo laga baranayo kombiyuutarka inaan qoro waxaan gacanta ku hayay barnaamij la yidhaahdo java programming oo ka mid a luqadaha kombiyuutarka lagu programmay inaan ka sameeyo videoyo iyo buug af soomaali ah halkaa iyadoo giraanta noloshu ii marayso ayaa wax isbedelay maxaa isbedelay waxa isbedelay maalin aniga oo magaaladan deganaa waddanka Denmark galab casar liiqiya xilli kuleelaha oo qorraxdu aanay degdeg u dhicin ayaan waxaan ku lugeynayay meel dadku ku lugeeyo oo ah baabuurta iyo loo ogolayn magaalooyinka waaweyn wadiga garanaya waxay leeyihiin wadooyin dadka baabuurta iyo ka xiran oo dadka kaliya ku lugeeyaan hortayda marka waxaa socday aabe iyo hooyo dhalinyaro ah oo gabar yar ay dhaleen ay daba socoto oo Danish cadaan ah kadaashooda nin baa baaskiil riixanay ninka iyo xaaskiisu isku mashquulsanaan iyaga sheekaysanayay gabadhooda yarna way daba socotay markii daba socotay ninkii baaskiilka riixanaya ayaa isagoon arkayno isaguba dukaanka muraayadaha iyo eegaya ayuu baaskiilkii birta yar fiiqan buu halkaa qoobka gabadha yareed uga dhiftay gabadha yareed way fariisatay way ooyday anigu marka waan daawanaya filimka halkaas ka socdaan daawanaya waxaan eegayay reactionka halkaa ka yimaada waxaa suuraysashadayda iyo filashadaydu ahayd haddii adiga aad ahaan lahayd haddii qoys Soomaaliyeed ahaan lahayd maxaa dhici lahaa wiilkii iyo gabadhii ama aabihii iyo xaaskiisii runtii waxay sameeyeen ayaa keenay dhinacaan u socday inaan ka leeyahay gabadhoodii yareed bay eegeen gabadhii way ooyday aad si xanuun leh u ooyday way soo eegeen waxay ku yiraahdeen soo soco dhib ma leh ninkiina wuxuu yiri waan ka xumahay umaan jeedin maan arkaynin marka iska daaba yiraahdeen dhib ma leh gabadhii cabaar bay ooyday meesha kaligeed fadhiday way kacday waalidkeeda daba socotay ani markaan suuraysashadeedu waxay ahayd haddii ay labadaasi qoys Soomaaliyeed ahaan lahaayeen maxaa dhici lahaa ugu yaraan ninkaa waa lagu qaylin lahaa buuq baa halkaa ka dhici lahaa gabadhaa yari wax baran lahayd dulqaad la'aan waxa samaysmi lahayd mar kasta oo wax yari ku dhacaan inay fisho in waalidku uu si aad u xoog badan uga falceliyo arrintaasi markuu aad bay saameyn ugu yeelatay fikirkayga iyo aragtidayda meelaan u qaadan garan waayo waan ka imi maalin kaleeto anigoo maraya meel xanaano carruurta lagu hayo ayaan waxaan arkay carruur badan oo ajnabi oo Soomaali ku jirto oo naagihii hayay Danishka ah aad ugu dhibaatoodeen ciyaalkaasi qayladooda iyo buuqooda ay isla rafaadsan yihiin marka waxaan isiri kuwa kani waddankan ay ku dhasheen kuwan yaryar ee cadaanka ag joogaana waddankay kula dhasheen maxaa kala duway oo carruurtana insaan loogu dhibaatoodo keenay kuwana aysan u yihiin arrinta marka iga soo baxdaa waxay ahayd guryaha iyo qaabka wax loo barbaariyo iyo bulshadu si ay wax u aragto in lagu kala duwan yahay runtii waan soo koray waan soo weynaaday aniga laftarkayga aabe noqday carruur yeeshay ilaa intaas marka waxba kamaan samayn laakiin fikirkii wuu igu wareegayey bugaag waan raadinayay 10 sano ka hor ayaa mawduucii aad igu weynaaday oo noqotay warniyahow sida sax ma ah bulshada Soomaaliyeed daraaseeyay aan arkay xaggay tahay dhibaatadeena markaasaan waxaan u jeestay inaan baaritaan xoog badan ku sameeyo sidaan carruurta u barbaarino iyo sida loo barbaariyo iyo sida ugu wanaagsan ee carruurta loo barbaariyo runtii buuggani ma aha buug intaan u fariistay aan dhowr buug oo aan helay wax ka soo qoray ma aha waa mashruuc 10 sannadood iyo ka badan ah oo aan ka fikirayay halkan ka eegayay marba kitaab eegayay carruurta maadaama aan macallin ahay carruur aad u badan aan ku dhex jiray aan eegayay sida ugu wanaagsan ee maxaa la yiraahdaa carruurta loo tarbiyaday waxaan kuugu darayaa farxaan oo iyada lafirkeedu aad ii saamaysay macallimad baanu class wada hayn jirnay haddaan ah macallimadaasi ciyaalka aan wax u wada dhigaynay carruur ajnabi bay u wada badnaayeen aad u qaylo badan oo dhibaato badan macallimadaasi hal maalin iyada oo erey qaylaha ciyaalka ku oranaysa ma arkaysa aad bay ii saamaysay si degan bay ula hadlaysaa muddaan 6 bilood baanu sidii ku wadnay 6 bilood kalaaskii maasha Allah buu noqday kalaas qaylo badan oo la hayn karin buu ahaa wuu soo degay marka aniga iyada sheekana dhex martay waxaan ku iri waxaan rabaa inaan u biyeysto oo aan waqti geliyo barbaarinta iyo sida carruurta loo barbaariyo waxaan ku yiri bulshadeenu way ku dhibaataysanta waxay ugu tiri buugga aad qortaa wuxuu noqon doonaa buug aad taajir ku noqoto maxaad ula jeedaa baan ira waxay tiri bulshadeenu aad bay uga ooman tahay barbaarinta marka runtii waa mashruuc aan waqti badan geliyay cimrigayga inta ii hartayna haddii alla subxaanahu wa tacaala maalmo iigu talagalo inaan rabo inaan ku dhammaysto waayo waxaan arkaa bulshadeenu dhibaatadeenu ma aha wax badan oo dadku u malaynayo waxaa jira farxaanoo buug hadda aan wado weli soo bixin oo la yiraahdo inta joogta iyo jiilka iman doona
dadka nool maxaa u xal ah jiilka soo socdana maxaa u xal ah waxa ku jirta su'aalan weydiinayo oo ah dhibaatadeenu waa maxay ma qabiilka ma qabyaalada ma waxaas oo dhan ba aniga aragtidaan qaba wax way waxaas oo dhan inaanay dhibaatadeena ahayn nidaam tarbiyadeedkeena ayaa khaldan oo u baahan in la saxo sidaynu nolosha u aragno nidaam tarbiyadeedkeena wuxuu ka dhalanayaa saynu nolosha u arkayno saynu u qiimeynayno yaa bulshada hor dhexdeeda qiimo ku leh yaan qiimo ku lahayn nidaam tarbiyadeedka aad iyo aad iyo aad iyo aad buu u baahan yahay sixitaan badan nasiib darro dunidu markay isdhex gashay nasiib darro dunidu markay isu dhex gashay oo laisku furmay oo internet iyo social media la helay waxaa soo baxday waxaynu qarinayna oo ah qofka dadka runtii aynu nahay qofka bini'aadamka ilaa imtixaan laga qaado lama ogaan karo inuu wax yaqaaniyo in kale waxaa soo baxday in qiyamkii iyo nidaam afkaartii nolosha aynu ka haysanay ee waagii hore waalidiinteen iyo waalidiintoodii inkastaysan aqoon badan lahayn haddana qiyam wanaagsan oo insaani ah bay lahaayeen tiina meesha way ka baxday social media iyo baraha bulshadu markay soo baxeen ummad qaawan oo ma garanaysaa maran oo qiyamkii insaaniga aad uga maran baynu noqon marka waxaan isleeyahay meesha dib looga noqonayo ee bulshada tan dib looga dhisayaa waxa weeye in nidaamka barbaarinta la toosiyo oo la saxo aad baad mahadsan tahay in aad noo sheegtay ood weliba waqti fiican u qaadatay sababta kaliftay ama saamaynta kugu kaliftay inaad qorto buugga aad baan kaaga mahad celinaya kii aad soo wado haddii rabbi raali ka dhigo inta joogta iyo inta imaan doontaba ama inta maqanaad sheegtay ama maaragtay imaan doonta ama jiilka imaan doonana wuxuu noqon doonaa midaan aad u danaynayo inaan ogaado saamaynta aniga buuggaaga uu igu sameeyey ama waxa aan ka fahmay waxaan ku qoray paragraph yarba waxaan ka qoray inay leedahay soomaalidu dad aqoon leh qaymo leh laakiin aanan ka faa'iidaysanin waqtina aanan siinin aqoontoodii haddana saa hadda sheegtay aan ka tagnay waxyaabihii dadkii naga horreeyo waalidiinteenna ahaa ayagoon cilmi lahayn ama aqoon lahayn ay haysteen oo dhaqan ahaa oo ku salaysnaa dulqaadka wada noolaanshaha xushmada iyo waxaas oo dhan haddaba chapterka ugu horreysa oo aan u malaynayo inaysan maanta suurtagalno ahayn inaan buugga dhan wada aadno ama aan gaarno waxaad u bixisay ama aad u samaysay chapterkaas annagoo joogayna baro qofka aad tahay waxaad wax bari kartaa ama wax baraarin kartaa ama bulsho soo saari kartaa ama aad cunug yar kobcin kartaa markaad adigu og tahay qofka adigu aad tahay haddaadan adigu ogeyn qofka aad tahay oo ah cilmi baarid waxaan ka samaynay oo ah inuu qofka behaviorkiisa barto asagu isbarto intuusan cid kala baranin baad waxaad uga dhigtay saldhig maxaad u dooratay hawshaas ayada su'aal aad u qiimo badan waa runtii buugga qaabka u dhisan yahay ma jirto bugaag badan oo arrimaha barbaarinta laga qoray runtii waan akhriyey hadday noqoto kuwa luqadda ingiriiska lagu qoray iyo carabiga qaabka aan u doortay waa qaab anigu aan u xushay aanan u arkayey inay tahay sida saxda ah barbaarinta ay tahay waxaan u arkayey waxaan siinayay casharo waalidiin badan waalidiintu waxay ka bilaabayeen barbaarintu meesha ay ku dhammaato oo ah ilmaha in khaladka laga saxo laakiin halkaa barbaarintu kama bilaabatee waxay ka bilaabataa waalidkan wax barbaarinaya suurtagal maaha qofku inuu dhakhtar noqdo oo wax qalo oo operation sameeyo isagoon aqoon dhakhtarnimo lahayn suurtagal maaha qofku inuu macallin noqdo isagoon maxaa la yidhaahdaa aqoon macallinnimo lahayn marka waalidku qofna waalid barbaariye ah oo carruur soo saara ma noqon karo isagoo aan aqoontii barbaarinta lahayn aqoonta barbaarintana aasaaskeeda waxa weeye anigu inaan ogahay anigu qofkaan ahay shakhsiyaddaan ahay waxay saamayn badan ku leedahay saan ilmahay ula dhaqmay waxay saamayn badan ku leedahay mustaqbalkiisa qofku markuu naftiisa ogaado waxa dhici karta waxyaalo tiro badan oo ilmihiisa uu ku dhibayey inuu ogaado oo uu isagu iska istaago wuxuu kala ogaanayaa marka uu ogaado qofku naftiisa markuu ogaado ilmihiisa naxariis baa u gelaysa waayo isaga laftiisa wuxuu ogaanaya inay jirto naftiisu meelo ay ka liidato wuxuu qiimeynayaa ogaanayaa ilmihiisu inuu mudan yahay inuu uga naxariistuusan ahayn ilmo mashiin oo wax kasta laga fisho sidaa daraaddeed barbaarintu waxay ka bilaabanaysaa yani aasaaskeedu uu yahay shaqada tan qofka qabanaya hawl walbana waa saas shaqada tan qofka qabanaya waa inuu qof ahla u ah uu yahay u diyaarsan
naftiisu u diyaarsan tahay sida uu go'aanka u qaadanayo u diyaarsan tahay qofka uu nolosha la wadaagayso ula dhaqmayo u diyaarsan tahay marka barbaarinta furaheedu waa waalidka ilmaha sida qaladka looga soxo way waalidku waxay raadinayaan inta badan inay helaan shortcut wada yar oo fudud oo barbaarinta loo maro oo yiraahdo ilmaha uu qaylinaya si khaladka wasaxa nasiib darro ma jirto noloshu ma laha wada yar oo fudud oo wada dheer oo ballaaran oo ka bilaabanaysa kuna dhamaanaysa waalidka وأد بان كاغا محد علينيا إنان فرموق نقونو وحا كفيعان إنان فرها نقونو إن بدنو أناغا نغامي دو وحانا هاي فرموق وحان المهنة كو فرموقينا فرطا لكن دباتادو أصل كيدو أنيغا إيغا إيمانيسا أما أديغا إيكا إيمانيسا أما واردك الصوماليات بكا إيمانيسا إنت أنا مركي المهنة غارين هدانا أنو عنوغيغا في صومالي كولاها لنسيبو أبران هدانا عنوغيغا أنو داد حشمين سيبو حشمين وبوينتي آدو في عنا مقيم آدو في عنا طابتي هذا بس سيبو قفك وايلكا أما واردكا أما أرنتو أي كابلابتو وأسامين كانها إنو أسوغو إسوغادو تلابو ينوعي هتقولتا لله مادام أد قراتا هاي معلن بلشيتا هاي أد كشاقيسي هاوشان قيمة آدو بدني وقت آدو بدن أد جليسي أد فيريسي عنوغا يركا behaviorka أما دقنكا إدودي أي كولا دقنتي سيدو أتابن كارو أمد الصومالي هدي فهانتو نت سيدي أيغو أدقميان إن ilmahoodu baranayaan laakiin inay ka qaadanayaan dabciga dabeecadaas su'aal aad iyo aad u qiimo badan weeye waayo sidaan sheegay barbaarintu waalidkay ka bilaabanaysa qofka aad tahay inaad wax ka bedeshid oo aad faham naftaada iyo noloshaada u yeelataa waxay raaxo u tahay adiga waxay raaxo u tahay qoyskaaga waxay raaxo iyo mustaqbal ifaya u tahay ilmahaada waxaanu aragnay malaayiin carruura oo waalid aan ugu talagelin inay ilmahooda dhibaateeyey waayo wuxuu ahaa waalid aan naftiisa ogaal u lahayn khaladaad badan oo waalidku ogaal la'aan u sameeyey ayaa carruur badan noloshooda baabi'isay qaarkoodna maanta xabsiya ugu jiraan qaarkoodna cisbitaalka waalida ay ugu jiraan sidaa daraaddeed waalidku inuu ogaal isu leeyahay oo uu naftiisa ogaal u leeyahay waa arrin lagama maarmaan ah oo inuu barto wanigii sheegayay anigu ma noqon karo dhakhtar haddaanan baranin aqoonta caafimaadka iyo aqoonta barbaarintana aragtideeda wax badan muhiimsan aqoonta barbaarinta waayo waxa la barbaarinaya waa naf bini aadan in jirka bini aadanka meesha xanuunaysa la daaweeya way fududahay laakiin in ilmo yar oo dhashay oo maalintuu dhashay ilaa maalinta uu qof isku filan noqonaya wax kasta u baahan yahay laga toosiyo oo laga saxo oo loo hagaajiyo wadada fuulaa ma aha wax sahlan waxa dhici karta waxbarashada jaamacadda qofku markuu secondary dhameeyo 8 sanadood inuu dhakhtarnimo ku qaato laakiin maxaa la yiraahdaa aqoonta barbaarinta waa aqoon qofka godka la gelaysa waana waxa ugu wanaagsan ee aakhiro ilmaha ee qofka waalidka shafiic uu ku helayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala qur'aankana inoogu sheegay sida ilaahay ugu naxariiso rabbi irhamhuma kama rabbayani saqiira allow ugu naxariiso say markaan yaraa iisoo tarbiyadayeen iisoo barbaariyeen marka waa arrin muhiima waxaa jira nasiib wanaag baraarug badan baa bulshada Soomaaliyeed ka jira dad badan oo ahlu caqli ah ayaa hadda baaritaankaas wada koorsooyinka bixiya waalidku waa inuu waqti geliyaa oo uu bartaa suurtagal ma aha haddaad awoodid oo fursad u leedahay oo aad wax akhrin kartid ama aad awoodid koorsooyinka la bixinayo inaad qaadatid inaad ka hagratid carruurtaada $50 ama $20 oo adigu aad koorso ku qaadatid oo adiga naftaada bedela kadibna carruurtaada bedela waxaad tusaale soo qaadanaya farxaano hadda ka hor koorsooyin baan bixin jirnay saajid magaalada aan deganahay Copenhagen ku yaala hooyooyin badan baan wax barnay oo shahaadooyin siinay waxaan xasuustaa hooyo ka mid ah hooyooyinkaas ayaa waxay igu tiri hooyo waxay aad yare dadka kulul bagaranaysa tabar badan ku jirto waxay tiri maalintii aan isbuuci ugu horeeyay markaan koorsoodiina qaatay gabdhaha ila dhigayay gurigayga waa laga dareemay carruurtu waxay ugu yiraahdeen hooyo xagee tagtay maxaa isbedelay waxay tiri hooyo waxaan qaatay koorsooyin barbaarinta waxay ugu yiraahdeen hooyo meesha aad tagtay maalin walba aad isbuuc ayaa waxaa lagu dareemay isbedelka weyn ee guriga ka yimid
ma jiro waalidka cid ka jecel ilmihiisa waana qof xanuunsanaya mooyaane qof ugu talagelaya ilmihiisa inuu dhibaateeyo ma jiro absolutely laakiin innagoonan ugu talagelin ayaynu maalin walba dhibaataynaa ogaan la'aan iyo aqoon la'aan marka wax kasta ood haysid iyo waqti kastood haysid geli inaad naftaada fahamtid si ay kuugu fududaato inaad ilmahaaga barbaarisid jiil dambe oo jiil mustaqbal fiican loo ifayana ay inoogu soo baxdo runtii xaaladda ummaddeena markaan arko aad iyo aad iyo aad buu qalbiga iga xanuuna waxaanan dareemayaa dadka intii yareedee wax garanaysay inaanay dhibaatada culayskeeda aysan dareensanayn waxaa lagu mashquulaa waxbarashada waxbarashadu waa dhibic ka mida barbaarinta bulshadu inay jaamacada ka wada baxdo aqoon sare leedahay kulligood muhiim ah laakiin bulsho waliba inay barbaarin saxa leedahay oo dadku nolosha say u arkayaan ay u saxan tahay arrin lagama maarmaan ah way farxan usocod aadaad u mahadsan tahay wiigan interviewgan kaa qaadayo magaalada Nairobi waxaa dabaq iska soo tuuray wiil yar oo 8 sano jira miyaa mise dhowr iyo adigu muddo jira ma anigu kama warqabo sidaan social media ka arkay waxaana suuqa la dhex marinayaa in barasharka ama culayska waxbarasho oo cunuga la saaray ay kaliftay inuu cunuga isdilay gabadh anigu aan dhalay oo iskuulka dhiganaysa imtixaanka sideedaadka u fadhiday classkeedii gabar baa isdisho meel iska tuurtay cabsi ama barashar lagu saaray waxbarashada lagu saaray oo ay iloobeen waalidku muhiimadda ay leedahay barbaarinta waxa adiga aad ka hadlaysa waaye baahi aad u badan baa loo qabaa waxaad hadda ka hadashay koorsooyin aad bixisaan ama aad bixin jirteen ama ay dad kala bixiyaan oo ka warqabo culimada bixisa ama dadka anigu aan aadka u aqaano uu bixiyo uu ka mid yahay Sheikh Mubarak Hadi uu ka mid yahay qorayna buug la yiraahdo garaadso intaadan guursanin garaadso intaadan guursanin oo buug aad iyo aad u qiimo badan maadaama ay tahay in badan waalidkeen ama ayeeyooyinkeen ama dadkii anaga naga horreeyey aysan cashar ahaan noogu dhigin laakiin nolol ahaan iyo example ahaan iyo tusaale ay noo tuseen dad badanina aysan tusaalahaas u qaadanin inay noloshooda qayb ka mida tahay sida ugu fiican oo aan ummaddu ay u heli karaan inay ogaadaan war inaad course qaadato ama aad training qaadato muhiim waaye maxaa yeelay aniga kula hadlayo waxaa noloshayda wax ka bedelay nin la yidhaahdo Shiine Borame oo iskuul carruurtayda dhigtaan muddo almost dhowr decade ka hor macallin ka ahaan jiray oo macallin maahane ka ahaan jiray maamule ka ahaan jiray baa jaamacadda Minnesota waxay bixinaysaa course Shiine Borame wuxuu sameeyey 100 qofood buu ka qoray coursigaas waxaan u qaadanay Mareykanka waa ku cusbayna in la baygareynayo lacagna lagu siinayo coursiga waxaan dhammaanteen isqornay coursigii baan isqornay markaan isqornay maalinkii ugu horreeyay oo introductionka ama nolol sharaxaya coursigu waxay noqonaysaa waxaana la ku yiri iska daaya lacag in la ina siiye waxaa require oo aad u baahan tihiin inaad saxiixdaan in aad si iskaa iskuulka uga shaqayn doontaan basaska aad raaci doontaan howlweeyada aad fariisan doontaan qadada meesha ilmihiina ku cunaan aad ka shaqayn doontaan haddii aad rabto koorsada freega inaad qaadato 99 qofood baa ka lugaysay oo anigu aan ku jiro waa lugaynay waxaan dhahnay uma baahnin koorsigan waxaa ceeb ku noqotay Shiine in ay koorsigii Soomaalida loogu talagalay iskuulkiisana ay ardayda Soomaalida ugu badan dhigato uusan helin 10 qofood oo dhigata si xikmad leh oo caqliyeysan buu ila hadlay oo ugu yiri anaa kuu baahan ugu dambeyntii inaad koorsigan qaado asa saaxiib ma nahay fariiso koorsigan aniga ii qaado iska daa inaan lacag ka bixiyo waxaan rabaa marka inaan kuugu sheego waalid maalinkaas meeshaan jooga baa jira sidee baan ugu sharixi karnaa ugu ogeysiin karnaa $100 oo course ah ama $50 oo course ah ama cunugaaga inaad behavior assessment u samayso baarto cunugaaga dabcigiisa iyo dabeecadiisa see qofka Soomaaliga looga dhaadhicin karaa maadaama aad la foolo wax ku soo baratay ardaydii aan garabka wax ku baranin aad ahayd aad Yaman waxbarasho u aaday Talyaaniga wax ka baratay macallin aad ka tahay Denmark aad ka ahayd aaba aad tahay khibrad badan aad aruursatay seed u samayn kartaa waalidka qoraa aad tahay buug cajiiba qoray see waalidka Soomaaliyeed ugu caawin karnaa inay koorsooyinkaas qaataan
aad baad u mahadsantahay horta runtii labadii qiseed soo qaadatay aad bay qalbiga iga murjisay runtii waxaan dareemayaa caruur badan inay maanta arrintaa la dhibaataysan yihiin qaarkoodna ay dhici karto inay xilli aan fogeyn isdilaan qaarkoodna ay aad iyo aad ugu dhibaataysan yihiin runtii marka aan waalidiinta anigu la hadlayo waxaan ku yidhaahdaa war ilaahay subxaana watacaala risiqa shahaado kuma bixiyo risiqa shahaado kuma bixiyo waxaa jira dad badan oo ilaa PhD socday aqoon sare yeeshay in yaroo mushaaray helaan mooyaan wax kale aan helin qaar aan weligood iskool gelin baa jira haddana maalqabeena alle subxaana watacaala risiqa shahaado kuma bixiyo ilmihiinna horta fahmi ilmahayga kan alle subxaana watacaala isagaa alle wuxuu risiqiisa qoray ka hor intuusan afka u dilaacay ilmahani fahmo waxaad ku fahamtaan xagguu nolosha ka gelaya ciyaar alle uma abuurine hibaa ku jirtay xaggay tahay inuu bulshada ugu shaqeeyo oo hibada la siiyey waate qof waliba meesha ay naftiisu hibadeedu tahay wuu ku raaxaystaa wuu jecel yahay wuu ku soo jeedaa saacado badan buu geliyaa laakiin meel aanay naftaadu hibadeeda ahayn haddii lagugu riixo cadaab adduunyaad ku jiraysa waxaan aaminsanahay marka carruur badan inay cadaab adduunya ku jiraan oo hibo aanay lahayn oo qofku inuu waxbarashada iskuulka ku fiican yahay waa hibo iyo deeq alla bixiyo waxaa dhici karta kaa hibada iyo deeqda waxbarashada iskuulka alla siiyey mid kale in laga qadiyey oo hibo kale uu magaranaysa uusan haysan inay jirto saas daraaddeed ayaa buuggayga qaybta labaad aan uga hadlay waalidku markuu isagu isfahmo inay muhiim tahay inuu ilmihiisa fahmo waayo ilmahaaga inaad fahamtaa adigana raaxay kuu noqonaysa ilmahaagana raaxay u noqonaysa ilmahaaga inaad fahamtaa waxay keenaysaa inaadan filashada aad ka filanaysaa ay tahay mid sax aysan ahayn mid khaldan waalidiin badan filasho khaldan ayay ilmahooda ka filanayaan midaan awoodiisa ahayn sidaa daraaddeed ayaan maxaa la yidhaahdaa runtii qaybta labaad ee buugga aad si ballaaran uga faahfaahiyey halkaa markaan uga sii socdo marka waxaan rabaa waalidiin badan inaan u sheego walaalayaalow maalin 10 aad sheekh ka dhageysatay iyo muxuu ahaa barnaamij video ha daawatay kuguma filla arrinta tani waa arrin u baahan aqoon inaad heshid kow aqoonta labaad aqoonta markaad hesheen inaad ku samaysid tadbiiq oo dabaqdid oo aad waqti gelisid uga fikirtid oo ogaatid adigu is ogaatid ilmahaaga ogaatid waa aqoon u baahan runtii waqti in la geliyo waayo waxa ugu qaalisan ee aynu haysanaa waa carruurteen waa inaynu marka waxa ugu qaalisan ku bixinaa oo waqtigeena iyo maalkeena waxa ugu qaalisan inaynu haysanaa waa carruurteena waxa ugu qaalisan inaynu ku bixino waqtigeena iyo carruurta magaalada aad joogtid wadanka aad ku nooshahay raadso dad aqoontaas leh koorso dhammaystiran ka qaado faham ilmahaaga adigu isfaham ilmahaaga sida khaladka ilmaha looga saxo baro qofka aad tahay adigu is ogow waxaas oo macluumaada iyo aqoona markaa isla heshid oo aad dabaqdid waxaan aaminsanahay inay guryo badan oo Soomaaliyeed xasili doonaan waana arrin runtii aad iyo aad muhiim u ah runtiina arrinta kale waxa weeye wax inaga kaliya hadda maanta Soomaali haddaynu nahay gaar noo ah maaha noloshu aad bay isu bedeshay si xawli isu bedeshay sidaa daraaddeed barbaarinta loo baahan yahay waa barbaarin aad bulsho kasta ugu culus wax badan iyo teknolojiya badan oo waagii hore jiri jirin baa timi ilmuhu inuu leexdaa waxyaalaha keenaya aad bay u tiro badan yihiin waxyaalaha madadaalada ah qofku inuu waqtigiisu maalayacni ku baxaa keenaya aad bay u tiro badan yihiin maanta qofku uma baahna waagii anigu aan yaraa madadaalo waxaa noo ahayd inaan kubad ciyaarna ama inaan shaneemo habeen hadda shaneemadii ilmaha jeebkiisa ugu jirtaa telefoonkiisa ugu jirtaa haddaadan barin inuu waqtigiisa maareeyo oo xilliga uu u baahan yahayna wax barto xilliga u baahan yahayna isticmaalo telefoonkan waxay keenaysaa nafta bini'aadamku dabeecadda nafta bini'aadamku aa leedahay waxa weeye waxa madadaalada naf kastoo bini'aadan way jecesha haddaan la barin marka nafta kastoo bini'aadanahina way necab tahay waxa hawsha iyo shaqada iyo challenge-ka u baahan way necab tahay waa dabeecad bini'aadanka alle ku abuuray laakiin waxa loo baahan yahay in lagu khasbo ilmihii markuu yar yahay adigaa waalid u ah oo ay tahay inaad fahamtid in ilmaha kani uu u baahan yahay inaad xad lama dhaafaana u samaysid xilli waxaan uu barto xilli wax telefoonka isticmaalo xilli ay tahay buugga inuu la saaxiibo marka hadalkayga kooban waxa weeye idinkuma filla video maalin aad meel ka daawateen idinkuma filla sheekh muxaadaraynaya waxaad u baahan tihiin koorso dhammaystiran inaad qaadataan meelo dad badan baa jira oo maxaa la yidhahdaa sida aad magacawday waxaan rajaynayaa idinku laftirkiinu hadda mashruuciina baraarug barnaamijkan weyn aad wadaan inay qayb weyn oo ka mida ay tahay arrimaha barbaarintu waxaynu u baahannahay ka ummad ahaan dadka mawduucan kusoo jeedaa way yar yihiin laakiin dadkaa yar ee ku jira in lagu garab istaago fahamna loo yeesho war haddaad maanta
hadaad maanta waqti gelinaysid waxa ugu fiican waqti gelisaa waxa weeye inaad aqoon u yeelatid barbaarinta ilmahaaga ayaan runtii waalid kasta u oranaya marka ma jirto wax ka qaalisan oo waqti ku bixin lahayn barbaarinta ilmaheena aad mahadsan tahay aad baan uga helay waxa ugu qiimaha badan oo markaan diinteenna iyo faithkeena laga reebo waa ilmaheena waxa aan haysanana waa waqtigeena yaanaan ka hagranin waa hadal xigmad leh waaye oo insha allah tacaala aan jeclaan lahaa meeshaas inaan uga tago maxaa yeelay waxaan aaminsanahay biyo dhucu ama meesha ay wax ka halaysan yihiin saad sheegtay ama aan fahansanahay ma ahan ilmaheena waa annaga waaye haddii annagu ay noo hagaagto ama annagu aan hagaagno markaasaan adduunka tartan la gelaynaa oo waxa la isku haysta inay ilmaha maskaxdooda tahay state of Minnesota dhibaatooyinka laga yaabo hadda inay dad badan qabaan oo laga yaabo inaad hadda meesha joogto Denmark iyo meelo badan oo Soomaalida ay joogto ay qabaan oo uu ii sheegayay macallin jaamacadda dhiga oo Soomaalidana aad uga warqaba in wiilasha Soomaaliyeed oo kale iskuulada ka tageen gabdhuhu ay ku badan yihiin laakiin dhibaatadaas waxaa ka qayb qaadan karta markaan aniga ama anigu aan ahay diyaar u ahay inaan dhibaatadii fahmo sidaa hadda aad noo sheegtay waqtiga yarka oo aan haysano waxay noqonaysaa u malaynayaa dhowr silsiladood inaan ka samayno buugaaga ama cilmi baaridda ama aidiyadaada dhowr iyo 10 daqiiqo oo noo hartay qaybta labaad aan galno qaybta koowaad waxay ahayd naftaada faham qaybta labaad oo wax yar ka taabatay waxa waaye fahamka ay leedahay ilmahaagu fahamka uu cunugaagu leeyahay si aadan cunugaaga shahaado ugu cadaadin markaas irsaaqadaa ku xiran cunugaaga inaad fahanto hibadiisa inaad fahanto awoodiisa inaad fahanto sidee bay waalidka Soomaaliyeed ku fahmi karaan oo anigu aan sida hadda aragto kalara badan aan buugga ka sameeyo oo aan rabin hadda inaan wax kaa weydiiyo maadaama adigu aad nala joogto sidee bay waalidku ilmahooda ku fahmi karaan aad baad u mahadsantahay su'aal aad u qiimo badan runtii buugga sidan silsilad ahaan u taxay baa waxay ahayd waalidka kadib ilmaha fahamkooda ilmaha Allah subhanahu wa ta'ala bini aadanku wuu kala duwan waana nolosha quruxdeeda qof waliba wuxuu leeyahay hibo gooniya wuxuu leeyahay hab fikir gooniya bilyankaas qof ee adduunka ku nool qof waliba kaligiis buu unique yahay qof la mid ah ma jiro sida daraadeed ilmaheena marka aynu tarbiyadeynayno waa inaynu eegnaa oo fikirkeena koowaad aynu u saxaynaa inuu yahay ilmahani kaligiis buu yahay unique kaligiis buu yahay sida daraadeed inaynu isaga u fahamno maxay tahay potentiality-ga awoodda ilmahan alla geli ciyaar looma abuurine maxay tahay doorka uu nolosha ugu talagalay alla inuu ku yeesho ilmuhu waxay leeyihiin hibooyin kala duwan waxay leeyihiin ma garanaysaa qaab ay wax u bartaan waxa jira hal hays aan buuga ku soo qaato ah ilmo waliba wax uu baran karaa haddii la ogaado sida uu wax u baran karo isla markaana uu helo cidda saxda ah ee sida saxda wax u bari karto dhibaatada ugu badan ee caruur badan ay noloshooda dhibaato ku haysaa waxa weeye waalidku wuxuu barbar dhigaa ilmo kale xilliyadan oo kale marka iskuulada la xirayo stresska ugu badan ee waalid kasta haystaa waxa weeye ilmahaaga maxaa laga soo sheegi doonaa darajo fiican buu ku gudbi doonaa mise darajo hoose ku gudbi doonaa ilmaha qiimeyntiisoo dhan waxay noqotay darajadaas laakiin ma aha ilmaha markii darajadiisii ay noloshiisoo dhan markay darajada tahay ilmihiina aanu lahayn hibo waxbarasho ilaan ilmaha hibo waxbarasho leh ilmaha hibo isboorti leh ilmaha hibo hal abuur leh ilmaha hibo maamul iyo hogaamin leh qof walba bulshada meel ayuu ku habboon yahay haddii marka ilmaha lagu riixo wuxuusan ahayn oo noloshiisoo dhan qiimaheedu ay noqoto imtixaanka maxaa la yidhahdaa darajada uu imtixaanka ka keeno marka noloshiisa oo dhan qiimaheedu uu halkaa noqdo waad suuraysan karaysaa ilmaha ku liita siday noloshiisa u baaba'ayso waad suuraysan karaysaa ilmaha alle hibadaa isagu siiyey faanka iyo waalidka dhalay ma garanaysaa sida uu dadka kale isaga weynaysiinayo ugu sheegayo ilmihiisa in waxbarashadoodu ay aad u fiican tahay marka mawduucan muhiimadiisu waxa weeye waalid walba inuu ogaal horta u yeesho yiraahdo ilmahaygu keligii weeye unique weeye noloshiisu qiimaheedu ma aha waxbarashadii ma aha darajada imtixaanka uu keeno ee waxa weeye qofka uu yahay ilmahani wuu noolaanaya allah risiq u qoray
waxaan rabaa inaan ogaado hibada uu leeyahay oo uu bulshada tan ku soo kordhinayo isna wax isugu tarayo noloshiisana wax ku tarsanayo dadkana wax ugu tarayo isla markaana ay noqonayso wuxuu ku raaxaysto oo aysan u noqonin sida nolosha aan ugu dhisaya waxbarashada macnaheedu waxa weeye ilmahayga inaan u dhiso inuu hadhowto isku filaado la soo baxo wuxuu ku noolaado markuu qoys noqdana uu maxaa la yidhahdaa nolosha reerkiisa ku dabaro bulshadiina uu u noqdo qof muhiim waayo qof kasta bulshada way u baahan tahay dhakhtarka way u baahan tahay ka gaariga samaynaya way u baahan tahay siyaasiga way u baahan tahay hogaamiyaha way u baahan tahay macalinka way u baahan tahay dadkoo dhan dhakhaatiir ma wada noqon karaan iyo injineero qof waliba inaan eego ilmahaygana xaggay tahay meesha waa dhagaxa bulshada meesha uu ka gelaya xaggay tahay marka waxaan isleeyahay haddii waalidiin badan arrintaa fahamkeeda yeeshaan noloshooduna way raaxay noqon lahayd ilmahoodana nolosho caruur badanna wallaahi cadaabta ay ku jiraan nafsiyanka ah way ka degi lahayd waxaan aaminsanahay cadaabta ama ciriiriga nafta qofka biniaadamka uu galo wax ka darani ma jirto jirkan haddii maalin lagugu dhifto isbuuc laba soo isbuuc kadib wuu bogsoonaya laakiin hadalka khatarta ah ee dhibaatada ah ee waalidka oo ah qofkaa dadka ugu jeclayd oo kugu yiraahdo 100% baad aaminaysaa waana laabtay minute kasta kaa garaacaysa waalidiin badan marka iyagoo is oranaya wax u tara ilmihiisa nasiib darro ka ummad ahaan waxaynu naqaanaa laba eray oo qofka lagu dhiirigeliyo in qof kale la barbar dhigo hebel baa kaa fiican oo loola jeedo in ilmaha lagu dhiirigeliyo iyo in la caayo oo la maago la yidhahdo doqon baa tahay marka arrinta tani waa labadan mawduuc isku xiga waa furaha koowaad iyo furaha labaad ee barbaarinta fahamka waalidka iyo ilmaha waalidku inuu isagu isfahmo iyo inuu ogaal u yeesho wiilkaygan maxamed ama wiilkaygan xasan ama gabadhaydan sahra iyay tahay horta sidan anigu markii hore waalidku ay ahayd naftiisa inuu ogaado gabadhaydan ama wiilkaygan markan ogaado qofkay yihiin meesha ay ku fiican yihiin way fududaanaysaa wadadan alla u abuuray inaan ku toosiyo oo aan magaranaysa ku garab galo marka arrintaas arrin runtii aad iyo aad iyo aad u muhiim weeye waana sababta aan isleeyahay dhalinyaro badani waxay iskuulka uga saaqidaan ama waxbarashada uga tagaan iyaga oo aan helin fahamkii ay u baahnaayeen maxaa la yidhaahdaa ay waalidkood uga baahnaayeen inay fahmaan ama waxaanay u diyaarsanayn ay ku ciriiriyaan ama runtii siday ula dhaqmayaan ay keenaysaba inay nacaan waxaan waalidku ula doonayo marka runtii hadday barbaarintu sir leedahay waxa weeye waalidow isfaham waalidow ilmahaaga faham aad waxaan uga helay qodobada iyo cilmiga aad u doortay isku xirka buugaaga ama tusmada buugeed aad u samaysay anigoonan jaanis u helin markii hore inaan kuu sheego not only cilmi baaridaada inaad wixii adiga kugu dhacay aad ka samayso bal sida diinta aad uga samaysay oo kale aad u soo qaadatay aayadaha alle iyo sunnada nabilahi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo intaas keliya ma ahana dadka khibradda lahaa ee waxbaaray oo Einstein uu ka mid yahay iyo buugag badan oo akhriyay cilmi baaridda aad ka soo qaaday waa waxyaabaha aadka iigu soo jiiday inaad buugaaga aan maaragtay raadiyo ama buugaaga aan akhriyo adigana aan ku soo raadiyo waxaad ka hadashay labada waxyaalood oo dhiirigelinta ah tusaale ahaan ma u aragtaa waalidku inay only dhiirigelinta labadaas ka yaqaanaan keliya ma ahane inay ayagu raadinayaan dawo ama faan waxaan doonna baan ugu yeernay ay rabaan inay dadka u sheegaan cunugayga qur'aankii 14 iyo 100 bartay ayagoo ku faanaya ama laga yaabo inay ugu faanaan cunugooda kale aan qur'aanka aqoonin laga yaabo inuu hibo u yeelan lahaa inuu xadiista aruuriyo ama wax kala qabto ama baabuur u sameeyo ama kan qur'aanka bartay uu u sameeyo tablets uu qur'aankii ku xifdiyo ma laga yaabo marka waalidku inay ka tahay fan waxyaabaha comparisonka ay ku sameynayaan oo haddana ay ayaga aqoon darradoodii ay ku cadaabayaan oo ay ku ciriirinayaan oo haddana ay ku ciiriyaan ilmahooda absolutely aad iyo aad waxa jirta waxaan kaaga sheekeynaya arrin muhiima waagii aan yaraa ee aan masaajidada joogi jiray oo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam aan baran jiray arrin baa jirta anigu dadka aad u fikiraan ahay oo waxay arkaan aan ka gudbin laakiin aad u dul istaago ka fikira waxaan arki jiray xadiis nabiga calayhi salaam qof uu imanayo oo oranayo acmaal la sameeyo rasuulkii allow yaa ugu fadli badan oo qofku uu sheegayo salaad xilligeeda la tukado xadiis kale aad arkaysaa jihaad fii sabiilillah xadiis kale aad arkaysaa waalidka oo baari loo noqdo
حديث كان أنو مركز سورة جري سيدي سورة قال كتها إن صوتي حديث كان وها وها أعماش وها وفضل بدن صلاة وقت يدين تكذو سيدي هل كان هدنا اللولية والد سيدي هدنا اللي هل كان اللولية مركا هذا مركا موضوع كان كنتي باريتان كيس جريا وحن أقعد رسولك عليه أفضل الصلاة والسلام إنه هم معلم مربي أن عدلا من تاريخ الإنسان كصومر صحابي كانوا إيمانية مدولي بقى وديس يماشى وكهبون يهي أما أعباشا أي أباهانتها إنه تركيز أما فوكس كسارة أي أشيغي dadkoo dhani dhinac kasta jaanib kasta ma buuxin karaan laakiin xageed bulshada ugu habboon tahay mawduuca u baahan walaalo in la fahmaa horta taa weeye arrinta labaad waxa weeye oo u baahan in laga koraa waxa weeye ilmaha isbarbardhigooda aniga kuu sheegay waalidkeenu dhiirigelinta waxay ka yaqaanaan keliya hebel baa kaa fiican iyo heblaaya kaa fiican iyo ilmihii in la maago la caayo oo la yiraahdo doqon baa tahay just waalidku u dareemayo inuu ilmuhu taa cagsigeeda u qaato dhiirigelin u noqoto uu meesha uu joogo u ka kaco laakiin wuxuusan ogeyn raadka ay noloshiisa ku reebayso oo ah ilmahana inuu cidda uu aaminsan yahay anigu haddaan adiga aad ku aaminsanahay waalidkay aad tahay ama saaxiibkay aad tahay hadalka aad ii sheegtid filter badan ma saarayo laakiin qof aanan aqoon markuu arrin ii sheego inta badan filter baan iska saarayma sax waa ma khalad ba saa daraadeed qofka saaxiibkeeda waanadu uu siiyo way iiga fududahay inaan qaato qof aan aqoonin waa ina calaamad su'aal saara waalidka maadaama qofka kugu muhiimsan yahay hadalka uu kugu yiraahdaa way kaaga saameyn badnaanaysaa dadka caadiga ah macallinkaaga wax ku barayaa hadalka uu kugu yiraahdo suu kuu qiimeeyo doqon baa tahay uu kugu yiraahdo way ka saameyn badan tahay qofka caadiga sida daraadeed runtii arrintaasi arrin baraadiga ugu weyn bulshadeena u baahan tahay inaynu geynaa waxa weeye war dadka caruurteenni way dhibaato badan baa ogaan la'aan waalidku ku gaarsiinayay in wacyiga dadka kor loo qaado oo loo sheego ilmo waliba sidiisu keligii unique u yahay qof la mida alle subxaana wa tacaala ma jirto wuu noolaan doonaayo ilmahan cadaabta nafsiyanka ka daa nafsiyan ha u diline faham xaguu nolosha ku fiican yahay taana ku garabgal waayo eeg jaranjaradu say u kala koraysaa waxa weeye anigu haddaan nafteyda fahamsanahay oo aan ka adkaado oo aan barto inaanay dadka kale hadalkoodu saameyn ugu yeelan waayo carruurteennu waxay lahaystayaal u tahay inaynu dadka kale raali gelin inaynu dadka kale iska dhisnay carruurteennu lahaystayaal u yihiin laakiin haddaan anigu kobacaas ka koro oo qaybta koowaad ee buugga waalidku barto inuu isku kalsoonaado naftiisa dhisa waxay keenaysaa in anigu marka hore waxa aan samaynaya waxaan ku qancay ay tahay ilmahayga awooddiisa aan ogaaday in carruurta hebel baa shahaado qaatay iyo heblaaya shahaado qaadatay aysan macno ii samaynin aan ogaado ilmahaygu waddadii alla u abuuru marayaa wixii awooddeydana kama hakarinayo waan ku saacidaya inuu kani jaamacad ka baxay iyo inuu dhakhtar noqday macno badan ima samaynayso ilmahayga awooddiisaan ogahay wuxuu samayn karaan ogahay wuuna noolaanaya marka runtii taa weeye arrinta u baahan in waalidiin badan aynu ka xorayno oo ah ka daaya cadaabta adduunyada ilmihiina gelinaysaan aad baad mahadsan tahay waxaa jirta gabar aan dhalay oo maalin iskuul ka mida la iiga yeeray waalidiinta loo yeeray markii iskuullada loo yeeray baa waxaan jaanis u helay in ay macallimiintu maadaama ilaahay fursadda hadalka ii sahlay sida adiga ilaahay fursadda xisaabta kuugu sahlay inay jaanis ii siiyaan inaan waxaan meesha u imid sheego waxaan u imid inaan gabadhayda support siiyo uma imaanin inaan gabadhayda levelka aqooneed ay ka joogto aan maanta ogaado keliya inaan gabadhayda support siiyo oo micnaheedu ay tahay hadday gabadhaydu rabto aqoonteeda inay kor u qaaddo inay ayada ku xiran tahay hadday rabto aqoonteeda meeshaas inay dhigatana ayada u xiran tahay gabadhaydii intay wax kala samayn lahayd she start crying she says Abba I wish I have that video I wish Abba waxaan ilaahay ka baryi lahaa waalidka ardayda ila dhigtaa inay intaas samayn lahayd uma inay tiri inaad intaas tiri laakiin ardayda iskuulka ila dhigtaa waalidkooda inay intaas samayn lahayd oo in badanoo ka mida ay joogaan ay u yimaadeen inay dubbe iyo bud wataan inay cunugooda ku garaacaan because wuxuu macallinku u sheegay and that's the waxa kalifay in gabadheeda iskuulka arday la dhigata qayb ka mida
ay xanuunka ay dareemayaan isku dayda in badan oo ka mid inay u sheegto war ha ku dhicinina inay qayb ka mid isdileen marka waxaad sheegaysaa xaqiiq waaye waaridka waaye wax ka qaldan yihiin annaga waaye waxa u baahan inaan saxda samayno waxaan soo gaarnay gabagabadii oo aan jeclaan lahaa only 2 chapter baan ka taabanay buugaaga oo ah baro qofkaa tahay iyo fahan ee cunugaaga xiriirka sidii u samayn lahaayeen waxaan jeclaan lahaa inaan gadaal ka samayno we have 1 minute or 2 minutes oo insha Allah tacaala aan gadaal ka samayn doono dadku meesha ay maaragtay aan jeclaan lahaa inaad dadka u sheegto seebay buugaaga u heli karaan xagee bayse kaala soo xiriiri karaan koorsooyin adiga aad samayso ama maaragtay adiga aad samayso ama online ha ahaatay oo dadku heli karaanna ma jira bal intaas noo sheeg insha Allah aad iyo aad waad mahadsantahay horta runtii buugaygana aniga lafkaygu halkan ku hayo bugaag badan oo kale oo carruurta oo qoray sheekooyin ah oo sheekooyin sawirana tawxiidka iyo barashada afkaba runtii qofka hadduu Yurub joogo ama qurbaha uu joogo way fududahay waan u dirnaa Soomaaliya buuga kan waa laga helaa meelo badan baa laga helaa Muqdisho way yaalaan Hargeysa way yaalaan Garowe way yaalaan buugtani marka insha Allah tacaala waad ka raadsan kartaan haddaad waddanka joogtaan telefoonkaygana waan qorayaa iyo emailkayga qofkii si toos u baahna waan ugu soo diraynaa insha Allah tacaala koorsooyin way jiraan aan bixiyo sabtida tanta ku xigtaba koorso la yiraahdo waxaan bixinayaa fahamka naftaada waa farxadda noloshaada oo ah waalidku inuu isfahmo oo naftiisa furaheeda uu helo marka aniga iyo dad badan oo ila midaba waxaan ku mashquulsanahay arrintaa dad badani ka gaabiyeen bulshadeennana fahamkeeda uu yar yahay oo ah sidaynu mustaqbalkeena runta u dhishi lahayn oo ah inaynu soo saarno jiil wanaagsan tartanka nolosha ka qayb gala magac iyo mansabna adduunka u soo kordhiya marka insha Allah tacaala koorsooyinka anigu aan bixiyana waad igala soo xiriiri kartaan koorsooyinka Farxaan iyo dadka kale la midka ay bixiyaanna waan idinkula talin lahaa inaad raadsataan waxa inoogu qaalisan diinteena ka sokow waa carruurteena aynu ku bixino waxa ugu qaalisan waqtigeena iyo dhaqaalaheena intaasaan oran lahaa Farxaan aad baad u mahadsan tahay Cabdullah Shafeeye oo ah qoraa Soomaaliyeed qoray buugag aad iyo aad u qiimo badan macallin ama maaragtay muraabid ama tarbiyeeye awlaada samayn jiray filimo hawlku ool ummadda Soomaaliyeed Cabdullah aad baan kaaga mahad celinayaa insha Allah tacaala qaybta labaad waqtigeedaan u diyaar garoobi doonaa haddii Rabbi raalli ka dhigo waxaan samayn doonaa insha Allah tacaala oo ummadda aan fahansiin doonaa oo maybe Nairobi ama Minneapolis oo basi ahna aan ka invite garayn doonaa inaad insha Allah tacaala online kaliya ma ahane ay seminarska ama koorsooyinka la sameeyo ay dadku qayb qaataan waxaan aniga laftigeyga niyadeyda ku jirta areada adduunka ka joogto Denmark inaan soo gaarsiino koorsooyinkeena oo aan imaado oo dadku ay fahmaan inaan ilmaheena wanaajino waa inaan anagu iswanaajino annagu inaan nahay muraayadii oo wax badan aad ka hadashay aad baan kaaga mahad celinayaa haddii Rabbi raalli ka dhigo waan mahadsantahay walaal aad baad mahadsantahay walaal adiga teamkaaga aad baan idinkaga mahad celinaya waqtigeen qaaligaad siisay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh